wasaaradda cadaaladda ee waddanka Mareykanka ayaa dacwado dhowra waxa ay ka soo gudbisay madaxa dhaqaalaha shirkadda tiknoolajiyadda ee Huawei ee laga leeyahay dalka Shiinaha Miss Meng Wanzhou. Dacwadaha la gudbiyay ayaa waxaa ka mid ah wax isdabamarin ballaaran oo lagu sameeyay bangiga iyo fiilooyin sharciga Mareykanka oo la baalmaray iyo xatooyo loo geystay shirkadda tiknoolajiyadda ee T-Mobile ee laga leeyahay waddankaasi Mareykanka. Miss Meng Wanzhou ayaa waxaa bishii aynu soo dhaafnay lagu xiray dalka Canada kadib markii uu waddankaasi Mareykanku uu codsaday in la xiro, taasi oo xilligaasi lagu soo eedeeyay inay baalmartay sharcigii cunaqabataynta lagu soo rogay waddanka Iiraan. hase yeeshee kiiskani ayaa waxa uu xumeeyay xiriirkii ka dhaxeeyay wadamada Shiinaha, Canada iyo Mareykanka. Miss Meng iyo shirkadda Huawei ayaa waxa ay labaduba iska fogeeyeen eedeymahaasi loo soo jeediyay. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dhammaan cunaqabataynadii Iiraan laga qaaday sanadkii 2015 dib ugu soo celiyay oo xitaa ugu sii daray cunaqabatayno kale oo dheeraada. taasina ay keentay in Mareykanku uu ilgaara ku eego shirkad kasta oo ganacsi la samaysa waddankaasi Iiraan. bilihii ugu dambeeyay dhowr waddan ayaa soo gudbiyay walaac dhanka amniga oo ku aadan shirkadda Huawei, iyadoo waddankaasi Mareykankuna uu shirkadaha iyo dalalka ku dhiirigelinayay inaysan iibsan waxyaabaha ay soo saarto shirkaddaasi tiknoolajiyadda ee Huawei ee laga leeyahay waddankaasi Shiinaha. maalintii shalay ayay ahayd markii lagu dhawaaqay in saraakiil sarsare oo Shiinaysa ay toddobaadkan gudihiisa imanayaan magaalada Washington si ay Mareykanka ugala xaajoodaan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ganacsi ee ka dhaxeeya Mareykanka iyo waddanka Shiinaha. balse wasiirka ganacsiga ee waddankaasi Mareykanka Wilbur Ross ayaa waxa uu sheegay inaysan waxba iska gelin dacwadaha loo haysto shirkaddaasi Huawei iyo dadaalada wadahadallada ganacsiga ee Shiinaha iyo Mareykanka. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa badeecadaha Shiinaha ee loo dhoofiyo waddankaasi Mareykanka ku soo rogay cashuuro ka badan $250 bilyan oo dollar. kadibna xukuumadda Beijing ayaa iyana wacad ku martay in tallaabo la mid ah taas ay qaadi doonto. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.